السلام عليكم كلنتي وعن داوديال meel walba oo adduunka aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono maantay ololaha kaliya ma tihid oo ah barnaamij gaar ah oo dawladda Ingiriiska ay ugu tala gashay in lagu taageero haweenka ku dhaqan dalkan Ingiriiska barnaamijkan waxa ay kala qayb qaadanaysaa isla markaana idin sharaxi doonta waxa uu yahay ololaha kaliya ma tihid ubax cigaal oo iyadoo ah gabar social worker ah lana shaqeysa xarunta Somali Cultural Center ee ku taala dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ubax waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan gaarka ah oo maanta aynu ku taageerayno haweenka السلام عليكم وعليكم السلام ubax waxaan ku weydiinayaa maxay tahay ololahan kaliya ma tihid waxa la dhahaa program kan oo dawladda UK ka keentay oo af Ingiriis wuxuu yahay you are not alone turjubaanna wuxuu yahay kaliya ma tihid campaign kan waxay u keeneen maadaama oo hadda lagu jiro lockdown iyo coronavirus inay dadka xasuusiyaan reeraha oo ku jiro domestic abuse oo dib reerkooda ku jiro oo ay baqayaan ama walwalahayaan in wali la caawin karo inay askartana u yeeri karaan hadday u baahan yihiin yayihiin dadka aad la hadlaysaan oo markaas sida tooska aad ula hadlaysaan maadaama adigu aad familiyada la shaqeyso social worker-na aad tahay barnaamijkan dawladda ay soo dejisay so wuxuu dadkay rabaan inay warkan u fidiyaan waa maamooyinka aabooyinka qoyska Soomaalida iyo community-yada dhan oo isdareemaya inay ka baqayaan qof oo ay la nool yihiin ama hadduu yahay qof oo dilaya oo xoogaa control saare oo maybe lacagtay ka aruuriyaan oo banaanka loo diida amar waa inay qaataan qof kastuu u furan yahay ama qof yar ama qof weyn reer oo weligood isla joogay iyo dad hadda mardhow isguursaday muxuu yahay domestic abuse mar walba waxaa laga hadlaa domestic abuse iyo haweenka in lagu hayo bal inoo sharax so domestic abuse wuxuu yahay qoys hadday iska dareemayaan hal qof ama dad badan oo xukun lagu hayo ama qof bay ka baqayaan ama waa la dilaa ama waa la dhibaa waa la xumeeyaa waxaa loo diidaa inay reerkooda iyo dadkooda la xiriiraan control badan qof lagu hayo arrimahaas oo dhan waxaa loo arkaa domestic abuse wuxuuna noqon karaa cuntada markaa cunaysid amar waa inaad qaadatid lacag oo aad adiga leedahay ma haysatid waa inaad wareysatid qof oo lacagtoo dhan haysta oo xornimadaadii iyo noloshaada qof baa ka control aad iyo aad muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya guurka qasabka ah oo Soomaalida qaar ay caruurtooda ama ilmo gabdhahooda ugu guuriyaan iyo domestic abuse-ka wuxuu yahay Ingiriiska waxay dhahaan forced marriage so waa dad oo khasab lagu guuriyay qof kale oo ayaan go'aankaas kaligood gaarin oo amarkiisiin oo ku faraxsaneen ayagana ma haystaan choice iyo cod ay ku diidaan ama bedelaan sheekada saas waxaa loo arkaa domestic abuse qofkaasna xornimadooda laga waday maadaama qof baa lagu diray ayagoo rabin arrinta sidoo kale gudniinka fircooniga ah iyo domestic abuse-ka maxaa ka dhaxay kara iyagana so gudniinta waa la ogyahay adduunkoo dhan waddankaanna mamnuuc buu yahay campaign weyn aad jira in dadka la baro waa illegal xabsi baa la gelin karaa haddii aad ilmihiina ku suubisid domestic abuse iyo gudniinta xoogaa way kala duwan yihiin maadaama gudniinta inta badan ilmaa lagu suubiyaa gabdho yaryar so waxaa taas loo arkaa child abuse laakiin maadaama aan abuse ka hadlayno waxaa la rabay in dadkii la xasuusiyo gudniinna waa mamnuuc haddaana taas ka walwalaysid caawimaad iyo dadku caawin karo oo joojin karo wuu jira maxay tahay talada aad u haysaan haweenka qaar ama dadka dhibanayaasha ah oo abuse-ka dhibanaha u ah isla markaana ka walwalaya arrimaha sharci darrada so waxay rabaan qofka hadduusan sharci haysan ama mardhow waddanka la soo geliyay oo abuse-kiina lagu sheegay xagee aadi kardhaa sharci ma haysatid waa igu xiran tahay oo ismoodahayaan inayaan cod haysan oo la caawin karin kaligaa ma tihid wuxuu rabaa inuu xasuusiyo
sharci la'aan ama passport la'aan ma aha wax laga walwalo weli waa inaad caawimaad waa doonan kadhaa advice wuu jiraa dadku caawin karo sharcigaaga kaa caawin karo maadaama dhibtaana soo martay wuu jiraa waxayna rabaan inay xasuusiyaan ha ka baqin sharci la'aanta iyo dhibtaas horta domestic abuse-ka in lagaa soo saaro oo safety lagu geeyaa muhim ah hadhowna waa laga caawin karaa maxay tahay caawinta diyaarka ah oo xilligan u diyaarsan dadka abuse-ka la nool so hadda waxaa muhim ah haddii aad extreme danger adag isu aragtid oo naftaada ka walwalaysid emergency-ga la wacaaso waddanka UK waa 999 laakiin marmar dadka inay wacaanay rabaan laakiin ma hadli karaan way baqayaan in wax ku dhaco so 999-ka waxaa jira system UK-ga ah 999-ka taabane waxaa maqle codka oo ku weydiinaya ma askaraa rabtaa mise ambulance mise wax kale adoo hadli karin waxaa sugi codkaas oo ku weydiinaya oo ku fasiraya maxaa rabtaa ma hadlaysid shan taabane adoo hadlin toosu askarta ku gudbina so adoo hadli karin weli waa lagu caawin karaa bay rabaan inay dadka ogaadaan taasaa muhim ah second dowladdii oo sharcigan keentay oo ah keligaa ma tihid online information badan oo ku fasiraya yaa wici kadha yaa ku caawin kara xaqaaga internetka ku jira online waxaana jira nambaro oo UK-ga 24 saac la wici karo also nambaradaas online-ka ku jira so maalin iyo habeen waa wici kadha caawimaad iyo advice emergency-na haddaa rabtid waa wici kadha kuwaasaa muhim ah waxayna ku dareen haddii qof isu dareemaya laftooda inay dhib u keenayaan ama xaaskooda ama dilahaya ama ma rabaan inay suubiyaan ay is ogyihiin khaladay galeen caawimaad baa u jira dadka raba inay isbedelaan oo qof haddaa ka walwalaysid ama wiilkaaga ama reerkaaga aad tiri horta suu u dhaqmo ma fiicno waa ka walwalaa waxaa jira nambaro oo ayagana caawimaad ay ka heli karaan si ay isu bedelaan oo caraday waxa u keena dhibtaan ay isbedelaan oo bartaan sida loo isbedelo adayaan kugu mahad celinayaa ubax waxaa jira dad badan oo ah dhibanayaal abuse oo la rajiis gareeyay iyo kuwa ka baqaya in hadda la abuse gareeyo oo abuse-ka uu ku yimaado dadka noocaas ah maxaad ku leedahay maxaad iska caawinaysaa horta waxa aniga oo arkaa waxaa muhim ah inay dadka hadday la degan yihiin dad xanuujinaya oo ama ka baqayaan oo ayan xornimadooda iyo noloshooda wadan karin oo ay naftooda u baqayaan inay horta ogaadaan way jiraan dad ku caawin kara waana hadli kadhaa qofkiina inuu niyadda kaa jabiyo oo aad ismoodid qof adduunka kaa caawin kara ma jiro waa been waa lagu caawin karaa aan inay soo helaan beliefka iyo inay fahmaan wuu jira caawimaada waco ama qof aad ogtahay oo ku caawin karo u sheeg dhibtaada ayagana nambaradaanay wici karaan so adiga laftaada haddaadan hadli karin qof oo ku hadli karo way soo wici karaan oo sheegi karaan arrintaa maraysa maxaad ugu tala gasheen dadka luuqadooda koowaad aysan ahayn Englishka amaba aan ku hadlin Englishka oo kale hadda aniga soo maanta adinkan idinla hadlaa so dowladdii way ogyihiin dad badan luuqadda ingiriiska ma yaqaanin so warqadaha qoraalka af Soomaali iyo afaf badanaa lagu turjume shaqaalo anigoo kale ah oo Soomaali ah ama Asian community ama community-yadoo dhan shaqaalaa jira oo la tababaray oo caawin kara community centers aa la aadi karaa online-ka marka galo waa taaban kadhaa luuqadda afkaygaan ku rabaa way waxoo dhan afkaagu kusoo baxa haddaa akhrin kadid Soomaaliga so waxyaabo badanaa jira oo dadka caawinaya inay fahmaan iyo inay informationka luuqadooda u hormaro inay ku helaan ma jiraan dad caawiyayaal ah oo diyaarsan way jiraan so hadda aniga waxaan u shaqeeyaa community London ah oo Soomaalida ah North London area Brent iyo Camden iyo Westminster baan ka shaqeynaa laakiin London oo dhan community badan Soomaali waddanka dhan community badanaa jira oo loo tagi karo oo ku caawin kara haddaadan haysan community center dowlad kasta shaqaalo Soomaali way u joogaan waa la wareysan karaa way idin caawin karaan
maxay tahay hadalkaaga ugu dambeeya oo aad ku leedahay community-ga Soomaalida gaar ahaan gabdhaha victimska aniga waxaan dhihi lahaa haddii as a community aan ognahay inay ku jiraan dad oo dhib haysta oo dhib adag haysta oo ayaan xornimadooda haysan ama walwal ku jira ama noloshooda dhib lagu hayo waa in oo codkooda loo kordhiyo oo la caawiyo oo inay og yihiin caawimaad wuu jiraa keligoodna ma aha wayna soo wici karaan ama community ama askar ama council ama schoolka ilmihiina aadaan macallimiinta loo sheegi karaa dhibta waxaan ku dari lahaa haddii anigoo kale oo social worker ah aad naga baqaysiin ha baqin maxaa jira dadka waxaa la rabaa in la caawiyo iyo safety loo keeno so haddaa anigoo kale ila hadashid ma aha in dhib lagu furhayo waxaa la rabaa in la idin caawiyo oo safetygiina iyo noloshiina si nidaam ah aan kaa caawinin aad ayaan kuugu mahad celinayaa taasi waxay ahayd Ubax Cigaal oo ah mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee social worker-ka dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London sidoo kale waxay la shaqeynaysaa Somali Cultural Center ee ku yaala magaalada London intaas ayuu iiga dhan yahay barnaamijkii gaarka ahaa oo aynu maanta ku soo qaadanay ololaha kaliya ma tihid aniguna waa Cali Maxamed Yare farsamadii Maxamed Cabdi Salaam TV